dhegeystayaal kusoo dhawaada qabyaaladid podcast oo toddobaadkan aynu kusoo qaadan doono qayb ka mid ah gabayadii sayid maxamed cabdilla xasan eeba jannadii firdowsi ahayd ha ka waraabiye. gabaygan oo la yidhaahdo guulow allah iyo sababtii loo tiriyey ayaynu idiin soo gudbin doonaa. nuur jaamac maxamed dalbaas, rag uu ammaanduulo u ahaa ayaa daraawiish ka fakaday oo waxay u galeen ingiriis. dabadeed waxay ingiriiska ku dhaheen dab iyo raashin nasii daraawiish aanu la xarbine. ingiriiska siduu doonayey ayuu helay oo waa uu taageeray. dabadeed intay ingiriis hub iyo maal far badan ka soo qaateen bay waxay degeen nugaal dhinaceeda galbeed oo waxay ka samaysteen meel ay ku magacaabeen xarun yar. sayid maxamed ma jecleen wax daraawiish tabco u dhiga ama turaantureeya markay gaalo ku jihaadayaan. sidaa daraaddeed ayaa xaruntii col loo qalqaaliyey si nimankaas ingiriis gaashaanka u noqday meesha looga kiciyo. markii laga libaystay oo laga guulaystay oo la laayay ayaa sayidku gabaygan mariyey oo wuxuu yidhi: guulow allahayow haddii guluf la umbeeyey, gamaankii dariiqada haddii gani laga soocay, gooshiyo sangootada haddii heensa lagu gaaray, goor hore salaadii haddii gaadhka laga fuulay, afar maalin gala haddii lagu gurar beelay, guuraha habeenkii haddaan gooxa laga jiifan, gelidii haddii loogu tagay galaxyadii joogtay, gadgaduudka waa beri haddii weerar lagu gacshay, gooyaha haddii laga maree la garmaameeyey, gedjoonyadoodii haddaan gudurigu loogay, oo goonjigoodii tukihiyo had ku gabasleeyey, goonka ima noxonimay kufriga goola wadaagaane, gallada allahayo adaanagu gargaaraystay. toddobaadkana halkaas ay noo joogto qabyaaladid podcast oo aynu kusoo qaadanay gabayga guulow allahayo. tan iyo toddobaadka dambe intaynu ku kulmi doono podcast kan oo kale ah waa faad qabyaaladid oo idin leh mahadsanidin.